laga yaabaa inay dadka qaar isweydiiyaan ay yiraahdaan ninkaanu meeshii galmudugeed ma aadin galmudug xukuumadii dhaqaajila marka intay ka dhaqaajinaysa anuguna baarlamaanka sii joogaya hadii la yiraahdo waxaan rabaa mudane gudoomiye inaan baarlamaanka u sheego oo xasuusiyo runtii shaqada ugu muhiimsan ee baarlamaan leeyahay waa la baarlamaanku uu leeyahay markii laga soo tago doorashada madaxweynaha waa la xisaabtanka xukuumadda saddexdii sano la soo dhaafay waxay nagu dhaaftay xukuumadda yaan lala xisaabtamin iyo halala xisaabtama anagoo leh carabtu marka waxay ku mahadaadaa an taati mutaakhiran khayran min alla taati inaad soo daahdaa ka roon inaadaba imaanin marka hadda baarlamaanka waxaad moodaa inuu yimid oo de shalay waxaan arkaynay markii koowaad 3 sano kadib xildhibaanada mucaaradka ah oo telefishinka qaranka laga soo daayay wax kalena ma keenina waxa keenay maareeyo meeshan laga waayo lafiisa u cabsaday waa rajaynayaa midaana inuu maanta sii daayo waxaan rabaa mudane gudoomiye inaan xasuusiyo oo dhowrka su'aal ee soo socda aan weydiiyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka mas'uuliyadda saaran ciidanka qaranka oo koowaad waa inay difaacaan xuduudda dalka haddana waxa ugu darsantay la dagaalanka shabaab mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada waxaan rabnaa inaan ogaado ciidanka gorgor ee ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ee la geeyay magaalada Dhuusamareeb shaqada loo geeyay maxay ahayd maxaa dhibaho Dhuusamareeb ka jira oo u baahan in loo daabulo diyaarada lagu daabulo ciidanka gorgor annagoo og in sidoo kale loo daabulo ciidanka 20 waxaa jooga nabad sugidda galmudug oo niisa oo galmudug faraceeda waxaa jooga boolis marka waxaan rabnaa baahida keentay inaan ogaano deegaankaas qodobka labaad oo qodobkaas saameynaya wuxuu yahay waxa socday